بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته hadduu allaha awoodda la idmo muuqaalkeena maanta waxaynu ku dhisi doonaa mini projectigaas oo aynu u isticmaali doono hotel management system oo noqon doona system lagu maareeyo laguna maamulo hoteelada oo mini project ah luqadeen ku dhisi doonaa hadduu alla idmo waa luqadda loo yaqaana c#.net framework taasaynu markaa ku baran doonaa hadduu alla idmo qaabku u ekaan doonaay iyo qaybuhu ka koobnaan doonaay waa qaybaha ugu horreyn waa soo dibaagaraynaya markaa soo dibaagareeyo wuxuu isoo saari doonaa user authenticationka ayuu isoo saari doonaa taasoo aynu gashan doono username iyo password usernameka iyo passwordkan gashan doonaana wuxuu nagu keedsan yahay server loo yaqaano SQL server marka waxaan gelin doonaa admin baan gelin doonaa waxaan leeyahay 1 2 3 4 haddii uu saxan yahayna wuxuu isoo saari doonaa dashboardka haddii kalena wuxuu noo soo saari doonaa khalad already hadda usernameka iyo passwordkan gelinay labadooda mid ka mid ah ayaa khaldan oo kii saxda ahaa oo kaydsanaa ma aha saan kii saxda ahaa oo kaydsanaa uga dhigo waan isku dayi doonaa 1 2 3 inaan geliyo aan dhaho login sidaa awgeed hadda waa kii saxda ahaa oo kaydsanaa qaabkaas marka inoo weydiin doonaa wuxuu ka koobnaan doonaa allahuma mustacaan kariim qaybaha shantan miniyo ayuu ka kooban yahay qaybtan bookingka ayaa laga soo bunkaraysanaya waa la diiwaan gelinaya qaybta kale waa gastigii qaybta kale waxa weeye waa roomskii staffkii iyo paymentigii ayuu ka koobnaan doonaa oo qayb kastaaba aynu dul istaagi doono in arki doono se u shaqayso intaa markay ka nimaadno waa soo xiri doonaa waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobo oon muuqaalkan kusoo koobo qaabka loo sameeyo waayahay waxaan leenahay si aan u sameyno waxaan soo furi doonaa file baan soo furi doonaa new project ka dooran doonaa new project markaan ka doorto waxaan soo cugan doonaa oo soo dooran doonaa qaybihii waayahay c# waxaan isticmaali doonaa c# ayaa dooran doontaa markuu IDE-ga kuu soo kaco Windows baad kasii dooran doontaa intaa markaad kasii dooratid waxaynu dooran doonaa qaybta ay ku qoran tahay Windows Form Application.net Framework ayaa dooranaysa intaa markaad dooratid waxaad ku dhufan doontaa next markaad ku dhufatid halkan namespace-ka ayuu kuu sheegi doonaa inaad ku qoratid waxaan ku qoran doonaa markaa leenahay hotel management system okay hotel management system ayaa waxaan raacin doonaa lambarka koowaad waxaa laga yaabaa inuu hore igu jiray markaa lambarka koowaad waan ugu raasistay create baan lehemaa create markaan siino waxay noo soo baxaysa formkii defaultiga ahaa formkii waa soo yaraysan doonaa waxaan tegi doonaa qaybtan toolboxka waxaan kasii searchin garaysan doonaa panelka marka kasoo searchin aan ku sameeyo drop ayaan halkaad ku leeyahay xaggan ugu hooseeya ayaan propertigiisaan tegi doonaa waxaan leeyahay waxaad ka doorataa qaybta ay ku qoran tahay deb soo furo menuga itana xagga ugu sareysa giisa oo topka intaasaan soo yaraysan doonaa waxaan leenahay midabka backgroundka kasoo bedel intaa ka tirtir yellow ka dhigo waayahay yellow baan ku qoran doonaa midabka yellowga uu inoo siin doonaa waxaan u iman doonaa marka label inaan soo saarto labelka ayaan drop leeyahay lasoo jiidi doonaa halkaas ayaan label ka dhigan doonaa labelka waxaan leeyahay waxaad iga soo muujisaa labelka admin form iga soo waaye admin form ayuu naga soo muujin doonaa waxaan leenahay admin formka farta uu ka soo muuqanayaana far waaweyn ha noqoto bool sidaa awgeed waxaan ka dhigi doonaa 18 ayaan siin doonaa oo bool ah okay bool baan ka dhigan doonaa bool maan soo dooran bool ayaan dooran doonaa intaa marka ka yimaado waxaan u iman doonaa qaybtan u iman doonaa isla tegiskan ayaan soo qaadan doonaa qaybta loo yaqaano labelka markaan soo qaato waxaan leeyahay labelka waxaad iga soo muujisaa username markaad iga soo muujisay username performance-kiisa tag xoogaa soo yar roonaysi ilaa 10 ka dhig 10 markaan ka dhigo isla username-kana control+c leeyahay isagaan halkan dhigan doonaa waxaan ku bedeli doonaa meeshii password ayaan ku bedeli doonaa username-kan ku soo qortay intaa markaan ka imaado waxaan u iman doonaa inaan qaybta toolboxka tago waxaan ka soo searchgaraysan doonaa text box ayaad ka soo search ku samaynaysaa intaa markaan soo drag and drop garayno waa soo yabadsanaya control+c ayaan leeyahay isagana halkaasaan dhigan doonaa kanaan tegi doonaa kan waxaan leeyahay waxaad igu soo bixisaa qaybta nameka tag nameka waxaad igu soo bixisaa txt baan idhi username oo xarafka ugu horeysa weynaysiinayo kanna si lamid ah txt password oo xarafka ugu horeeya isagana
awoonaysiin doona. Intaa markaan soo samaysto waxaan leeyahay qaybtan aan dib ugu soo noqonaya butankii ayaan searching gareynayaa. Butankii drag and drop baan leeyahay isagana waa soo dhiganaya intaasaan isagana u deysanaya. Way butankii markaan soo gashto waxaan leeyahay butanka namekiisa waxaan ka dhigayaa marka btn baan leeyahay login. Waayahay qaybta tegiska ii soo muuqan doonta anigana waxaan dooran doonaa oran doonaa login iga soo saar. Login xoogaa waxaan leeyahay farta ha noqoto mid yar si wanaagsan bool u muuqata. Waxaan ka dhigi doonaa 12 okay baan siin doonaa marka. Intaas markaan sameeyo waxaan tegi doonaa database-kii ayaan soo kicsan doonaa SQL serverka. SQL serverkii markaan soo kiciyo waxaan diiwaan gelin doonaa inta halkan ku diiwaan gashtay in la mida ayaan soo diiwaan gashan doonaa maadaama aan rabo inuu isagu u kaydino ii noqdo. Waayahay SQL-ku markuu saan nagu soo kaco waxaan leeyahay connect ayaan siinayaa. Connect saan u siiyo marka hore waxaan samaysanayaa database-kan tegiga waxaan soo samaysan doonaa new database ayaad ku dhufan doontaa. New database-kana halkaa waxaan ula bixi doonaa magacii aynu space name-ka ula soo baxnay. Waxaan leeyahay hotel management system ayaa leedahay. Waayahay deetana waxaan siinayaa okay waan siinayaa marka. Wuxuu soo saari doonaa hotel management system. Refresh baan leeyahay si uu igu soo saaro. Halkaasaan soo furi doonaa waa kan hotel management system. Deetana waxaan leeyahay table igu samee. Tableskana wuxuu ka koobnaan doonaa labadii column aan hadda soo sheego waxaa midna username-ka midna password-ka uu ahaa. Ka hor waxaan leenahay waxaad u samaysaa column ku dar la yiraahdo ID loo yaqaano kaasoo reader-ka inoo noqon doona ka inoo akhriyi doona. Waxaadna ku kaydisaa data type-kiisa inti ka dhigi doonaa inti ana ka dhigi doonaa inti. Inti marka ka dhigo waxaan dooran doonaa marka username-ka isagana farsh ayaan leeyahay ka dhig. Farsh markaan siiyo waxaan leeyahay sidoo kale password-kii qoro. Password-kii markaan qorto isagana waxaan leeyahay farsh password-kana isagana farsh baan siisan doonaa. Intaa markaan tago waxaan tegi doonaa file aan leeyahay save table baan leeyahay marka. Table-ki waa magaca ula bixi doonaa waxaan leeyahay login tab baan siinayaa marka okay baan siinayaa marka login table baan ula jeedaa. Intaa markaan ka imaado waxaan leeyahay refresh baan siinayaa. Waxaan iman doonaa marka qaybtan aan isku dayi doonaa inaan maadaama haddaan soo kiciyo wax event ah ama wax programming ah ama wax siimo ah malaha wax amara malaha. Hadda login well aan ku dhufano kan ku dhufano waxaan ku qori karnaa laakiin waxay noo soo saari. Stefan way markaa waan soo xiri doonaa marka waxaan isku dayi doonaa inaan soo programmiyo button-kan ayaa double click aad siinaysaa. Double click ayaan siinayaa 2 goor. Waayahay ugu horeyn qaybtan ugu sareysa waxaad soo samaysan doontaa qayb loo yaqaano class-kaasna using system marka dhahno waxaan leenahay .data. Waayahay data-na waxaan leenahay SQL client aad siisan doontaa. Intaa markaad comment baad soo xiran doontaa isagii hoos baad u socon doontaa qaybtan aad iman doontaa. Ugu horeyn waxaan samaysan doonaa connection-kii ugu horeeyay. Connection san u samaysano waxaan leenahay SQL connection baan rabnaa inaan ku xiriirino SQL connection baan qoraynaa. SQL connection waxaan leenahay waxaynu soo qaadan doonaa waxaan soo gaabin doonaa kontaas waxaan leenahay waxaad igu kaydisaa. Halkaan waxaan sheegi doonaa marka new baan leenahay. Kontan waxay tahay waa new connection weeye. Waa new waliba SQL connection weeye. Intaa markaas iyo waxaan furan doonaa bracket-ka ayaan furan doonaa double quote ayaan siin doonaa marka. Halkaa waxaan ka horeysiin doonaa at dhexdeeda waxaan soo dhigan doonaa connection-kii ima samaysna san connection-kii u sameeyo waxaan tegi doonaa server-kii ayaan tegi doonaa server explorer ayaad ku dhufan doontaa. Waxaad ka sii dooran doontaa haddaanu server explorer qaybta ku soo saarina view baad tegaysaa. View waxaad ka sii dooran doontaa qaybta ku qoran tahay server explorer. Then waxa weeye database anigu hore igu jiray waa iska delete gareynayaa. Saas adiga ku noqon doona. Marka waxaad dooran doontaa halka ku qoran tahay add new data connection. Waayahay add connection markaan idhaahno qaybtan ay tegi doonaa waxaan dooran doonaa new qaybtan new object explorer ayaad dooran doontaa. Inta halka ku qoran waxaad leedahay control+C ayaynu copy gareysanay. Inta markaan copy gareysano waxaan ku noqon doonaa Visual Studio iyo halkaas intii aan soo copy gareystay ayaan halkaa control+V aad ku siinaysaa. Inta markaan ka imaado waxaan leenahay qaybtan waxaad ka dooran doontaa optional
files ayaad ka dooran doontaa haddana markaasaad qaybtan welcome kusoo gurita database-kii aan soo samaysanay waa kan test connection baan leenahay wuu inoo saxan yahay connection okay baan leenahay marka waayahay labadii may rabnaa inaan isku xidhno hadda error yar buu inoo soo saaray errorkaas semicolon-kii baan ka tegey halkaa dhexdan tegaya marka halkaa dhexda markaan tago waxaan dooran doonaa server explorer-kii hadda wuu isugu keen xidhan yahay qaybtaas markaad tigta saaranaya qaybta markaad tigta saarto aan tegi doonaa halkan ay ku qoran tahay property-ga waxaan kasii dooran doonaa halka ay ku qoran tahay connection stream horteeda ayaad ku dhufan doontaa control plus a baad leedahay control plus c intaas ayaan soo koobi garaysanaya baska halka ama stringka halka inoo yaala halkaasaan ku baasti garaysanaya intaa markaan ku baasti gareeyo waxaa ii samaysan hadda connectionkii database-ka soo sii hadda waxay hadhay awaamiirtii marka kon waxaan yidhi waxaan u soo gaabsanaynaa SQL connectionkii baan usoo gaabsanaynaa halkaas waxaan ka fulan doonaa marka connectionkii baan furi doonaa markaasaan bilaabi doonaa connectionkii iyo tablekii iyo columnska ku jira inaynu mid kasta magacowno halkaa markaan marayno intaynan qaybaha kale u gudbin amarada waxaynu siin doonaa marka hore inaynu variable aynu hubano aynu variable marka hore samaysano variable-kana aynu ku kaydsano waxa weeye xogtu meesha kasoo muuqan doonta iyo meesha laga soo qaadi doono variable seen u samayna marka hore waa inaynu sheegnaa variable type-kii ama data type-kii ama variable-ka nooca lagu kaydin doono string baan leenahay ka dhig stringna magaca variable-ka waxaa loo bixi doonaa username waxaan leenahay value waxaad uga dhigtaa txt username baan leenahay marka weliba double quote-ka ma qoranayo waxaan leeyahay txt username ayaan siin txt username markaan siiyo waxaan u samayn doonaa property-giisana waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa text ka dhig taas markaan sameeyo dot text baan leeyahay waxaan leeyahay semicolon-t ayaan kusoo xidhi doonaa enter baan leeyahay lana stream baan leeyahay password-ki ayaan qoran doonaa isagana waxa weye intaasaan kusoo xali doonaa enter baan leeyahay intaa markaan ka nimaadno waxaynu samaysan doonaa markaa command-kii ugu horreeyay waxaan rabnaa inaynu isku xidhno tableskii iyo columnskii halkii ay yaaleen iyo magacyadii columnska halkaa waxaan ka samaysan doonaa qayb loo yaqaano ayaan ka samaysan doonaa SQL command waa command-ka inoo noqon doona conjunction waa ka isugu keen xidhiidhin doona waxaa loo yaqaano xogta aan rabno inaynu soo saaro marka command-ka waxaan amri doonaa meeshii xogtaasi ay taalo SQL command markaan siiyo qaybtan aan ku dhufan doonaa SQL command-ka waxaan usoo gaabsan doonaa cmd ayaan usoo gaabsan doonaa cmd-na waxaan leeyahay qaybtaa cmd-daasi waxay ka dhigan tahay waxa weeye waa new SQL command waaye SQL command-kii aynu amarkii aynu siin lahayn markaasaynu sheegaynaa amarkii SQL command ayaan leeyahay SQL command markaan siiyo waxaan soo furan doonaa waaye bracket baan soo furan doonaa ama quotes baan soo furan doonaa double quote ayaan dhexdooda dhigi doonaa waxaan leeyahay select amarkii select ayaan siin doonaa select user isoo select garaya username iyo password-kaba kuwaasoo yaala tableka loo yaqaano login form tab kaasin la soo magaca kaasin markii usoo bixisanay waxaan leenahay qaybta markaan saa u sameyno waxaan leenahay halka columnska ay ka yaalaan columnka loo yaqaano username waxaad iga soo saartaa oo concatenation baan leenahay intaynaano equal markaan samaysano waxaan samaysan doonaa single quote haddana double quote ayaan qoran doonaa labada markaan qorto waxaan xusi doonaa concatenation calaamadda addition-ka ayaan qori doonaa waxaan leeyahay txt username wuxuu inooga soo saari doonaa marka username-ka ayuu xogta inooga soo saari doonaa username-kuna waa output-kii waya dan waxaan leenahay way property-giisa text baan ka dhigi doonaa intaa markii ka nimaadno waxaan leenahay sidoo kale waxaan samaysan doonaa text-ka marka aynu qaabka u qoranay waxaan leenahay isla concatenation ayaan siin doonaa waxaan leenahay double quote ayaan soo furi doonaa single quote baan qoran doonaa halkaas waxaan leeyahay aan password-kiisagana soo xusi password-ka xarafka qoriga uuna siinaya password baan leeyahay password-kuna ha kula mid noqdo waxaa weye single quote baan leeyahay double quote-kiina way qoran yahay intaa markaan marayo concatenation baan leeyahay isagana txt password ayaan leeyahay dot iska ayaad isagana siinaysaa intaa markaad siisid waxaad leedahay concatenation haddana
quotation markaynu siino waxaynu soo furan doonaa double quote iyo single quote oo dhexda ah halkaas waxaan leenahay comment u dhaxaysiin doonaa meeshuu xogta ka soo akhrisanayana connection ka noqoto connectionkuna waa kii database-ka inoogu xista marka hadda waxaan soo sheegnay columnskii tablekii iyo waxa weeyaan database-kii qaybtaba database-ka ayay ku guda jirayaan intaa markaynu marayno waxaan leenahay qaybta inter baan siin doonaa inta markaan siiyo waxaan halkaa ka xusi doonaa qaybta loo yaqaano SQL data adapter oo conjunctionka ah ama waxa weeye waa bridge between data set and data server datada kaydsan oo la rabo in la soo saaro iyo meeshay ku kaydsan tahay waxa u dhaxaynaya wey marka waxaan leenahay SQL-kii markaynu sheegno waxaan leenahay data adapter ayaan sheegi doonaa data adapterka ayaynu acronym ku samayn doonaa waan soo gaabsan doonaa waxaan u soo gaabsan doonaa DA markaynu idhaahno waxaan leenahay waa noola mid yahay waa new waxa weeyaan new data adapter waa new data adapter oo lasoo gaabiyey halkaa waxaanu ku xirsan doonaa CMDD oo command property CMDD oo ah waxa weeyaan SQL commandkii amarkii iyo meeshuu yaalay waxa weeye tableski waya markaasuu isaga raadin doona isku xiri doona marka intaa markay ka nimaadno waxaan leenahay data table ayaan siin doonaa data tablekaasina wuxuu naga caawin doonaa waxaa loo yaqaano inuu datadii iyo tableskeeda haddii row iyo columns tahayba inuu suuqan soo ururiyo okay intaa markay ka nimaadno waxaan leenahay isagana waxaan usoo gaabsan doonaa DT-na waxaan leenahay acronym weeyaan waxaa loo soo gaabsadaa waa magacaas ayaa loo soo gaabsadaa data table ayaa loo soo gaabsadaa intaan baan leenahay intaa markay ka nimaadno waxaan leenahay DA oo waxa weeyaan data adapterka ah ha la soo buuxiyo fiil ha lagu soo sameeyo iyadoo waxa weeye la adeegsanayo DT-ga oo tableskii xogta tableskii iyo rowskii iyo columnskii iyadoo loo adeegsanayo way qaybta markay marayno waxaan leenahay if halkaa waxaan ka samaysan doonaa if baan ka samaysan doonaa iftaas waxay noo caawin doontaa haddii datada lasoo helo datada SQL-ka ku kayd garaysan waxaad inoo soo saartaa message box-ka noo saar fariintaad noo soo saaraysa ha noqoto waxa weeye page show inaad na tusto noo soo saarto login waayahay successfully oo kale inuu inoo soo saaro intaan inoo soo saaro semicolon tima ma haddii aanu intaa soo saarin oo intaa soo waayo aad soo saartay marka haddii aad kii saxda ahaa aad weeyo waxaan leenahay waxaad soo saartay ls baan leenahay isagana bris baan soo furan doonaa waxaan leenahay message boxkaad soo saaraysa ha noqdo waayahay message boxka soo saaraysaa waxaa kaaga soo muuqdaan show baan leenahay okay amarkii baan sheegin doonaa double quote baan leenahay waxaan leenahay ify password or username isagaa intaasaan sheegi doona qaybtaan iman doonaa semicolon timaan saari doonaa marka halkaasaynu markaa kii connectionkii inoo furnaa ayaynu kasoo close karaya taas waxaan leeyahay safe saan u siiyo waxaan leeyahay marka hore SQL-kii baan tegayaa oo xogtii lasoo akhrisanaya ayaan gelinta waxaan tegi doonaa markaa hotelkii ayaan tegi doonaa management system oo database-kii ah SQL-kii waxaan ka tegi doonaa tablekiina waxaan leeyahay right click baan leeyahay marka tableka waxaan la soo baxay waa login tab weeyaan double click baan leeyahay halka ay ku qoran tahay edit top ayaan ku dhufan doonaa waxaan soo gashan doonaa admin baan leeyahay ka koobaad waxaan ka dhiganayaa 1 leeyahay admin kalena admin labadaba adminkaasaan soo siiyey labadaba adminka markaan soo siiyey haddii aan xog kale aan geliyo waa inuu ii soo saaro khalad haddaan laakiin adminkaa geliyo waa inuu ii soo saaro maxay sax waa inuu soo saaro intaasaan seef garanaya marka higanaan tegiyo isagana soo galaya okay higanaan tegiya waa soo dibin karay markaan soo dibaa gareeyo okay xaggan aan imanaya waxaan leeyahay admin kan kale waxaan siinaya 1 2 3 4 login baan leeyahay wuxuu soo saaray labadooda midkood ayaa khaldan haddaan labadoodaba aan saxoba oo intii soo gashado aan ka dhaadho ana admin aan dhaho admin aan login idhaahdo wuxuu soo saaraya login
successful buu soo saaray haddaan hal xaraf kusii daro halka xaraf uma diiwaan gashan xoranaya khalad page marka qaabka ayaa loo sameeyaa weliba passwordka markaan rabno inaynu ka dhigno mid waxa weeyaan hiding ah oo maadaama inta badan passwordada ay insecurity yihiin oo la qariyo hiding laga dhigo bullets baynu usoo saari doonaa waxay tegi doonaa markaa formka ayaan dib uga noqon doonaa passwordka tegi doontaa outputkiisa oo text boxka xaggan ayaad ka search gareyn doontaa waxaad ka search gareyn doontaa text character halkaasa waxaan calaamadii ayaan dhigi doonaa calaamadii multiplication ama calaamadii oo calaamada markaan dhigayno wayna dhibaa garanaynaa hadda haddaynu xogtii gelinayna waxay noqon doontaa hay bilxayrina waxay doontaa ha ahaatee mid qarsoon ayay noqonaysa qaabkaasaa la isugu xiraa SQL-ka iyo waxa weeyaan IPE marka kuwa intaas practical gareeya insha Allah khayr baan idin rajaynaya assalaamu calaykum halkaasaan kasii ambaqaadi doonaa kuwa kalena waxaan